dadka degan xaafadda Kayamandi ee Stellenbosch ayaa ka faa'iideystay howlgal quudin iyo deriska warqab ah oo ay fuliyeen Soomaalida deegaankaasi ku ganacsata taasi oo qayb ka ah gargaarka bini'aadanimo ee magaalada Cape Town iyo guud ahaanba dalkani Koonfur Afrika ka wadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. ilaa 200 oo reer oo isugu tagay saldhigga booliska ee Kayamandi ayaa gudoomay raashin ay sideen ganacsatada gargaar bixiyaasha Soomaaliyeed. iyagoo la hadlayay telefishinka Goobjoog Moolid Xasan Cumar oo ah gudoomiyaha ganacsatada Stellenbosch iyo imaamka xaafadda Imaam Maxamuud Faray ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa community-ga Kayamandi oo maaragtay wanaagan ugu dadka lockdown-ka oo saameeyay inay maaragtay ay abaabuleen in wixii maaragtay tabartooda ay ku tabarucaan way ku maasan yihiin community-ga Kayamandi meeshaan waxaan u quudinay dadka tabarta yar oo maaragtay Stellenbosch maaragtay COVID-19 uu saameeyay dad badan oo macnaha initiative uu saameeyay oo maaragtay iska xamaalo jiray guriga jooga la yiri marka qof walba maaragtay awoodo ama location joogana sidoo kale dadka deegaanka waa dad iska tabar daran haddana maaragtay initiative COVID-19 oo aad u saameeyay haddana dukaamada inta ku soo garaacaan waxay ku leeyihiin half road si saan waaye marka maadaama ay saas tahay waxaan dareenay xoogaa in maaragtay dadka deriska ahayd aan la noolaynay in macnaha ay initiative ay aad u baahan yihiin in la caawiyo marka barnaamijkan waxaan ugu magac darnay حافظ صونكان ugu magac darnay Ramadaan aan lagu diraa maadaama bisha Ramadaan lagu diro insha Allah in iyagana maaragtay maxaa October ay isaga sii moodaan annagana Ilaahay maaragtay noo barakeeyo oo ajirkeeda na siiyo dad 200 qof oo kor dhaafayaan wax kala siinay waxaan abaabulnay inaan macnaha wax badan arrimahan ka qabano si dadka meesha joogo wax aan tari karno inaan tarno sidaa darteed waa lagu guuleystay wax badan ma sha Allah gudoomiyahana waa noo dhibayn oo hadli doona marka waxaan leeyahay hawsha dhalinyarada in inta ka qayb qaadato way maasan yihiin alxamdulillah ilaah mahadleh ilaaha suuqaya keena anaga nabada meeshaan waxaan ku caawihaynay dad masaakiin oo nala dirisa oo ku dhaxnoolahay alxamdulillah ilaahana waafajiyay mana rabno inaan ayaga kaliya aan ku sinno haddii aan awood yeelano dadka kale masaakiin oo walaalahaynaho lagu diinaho lagu family kale inaan caawino insha Allah iyadana saasan Soomaalida kala farayna insha Allah annagana wixii karanka inaan ka geysan doonaa marka alxamdulillah soo imaadkeena saasoo ku saabsanay waxaan u mahad celiyaa community-da Soomaaliyeed oo qaban qaabisay iyo community-da kale South Africaanka ah ayaan u mahad celiyaa alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan leenahay muraadkan leenahay waxa waaya kaliya kala noolaashada aan dadka la noolnahana waxbay ka qabanaysaa oo waxbay ka taraysaa dirisnimada inaan muujinay ogaanayaan waxaa mahad iska Ilaahay waxaa mahad lamaad iska leh dadka Soomaalida oo ku dhaqan Stellenbosch gaar ahaan Kayamandi ugu deeqay dadkan tabaalaysan oo dadkan tabaalaysan oo xaalkood Ilaahay og yahay uu tala galay inay siiyaan alaabtan ugu caawiyaan waxaa mahad iska leh kansalayaasha oo nala garab galo nala maamulka hore wax hore ay ku garab galay waxaa mahad iska leh booliska waxaa mahad u sii sugnaatay odayaasha guddiga oo hawshan ku jiray marka Ilaahay baa mahad iska leh waana alxamdulillah waana lagu guuleystay my friend for everything support for support like abantu abamnyama besayilindelanga kuni lonto so sizaniphatha kakuhle nani nisiphethe kakuhle so siyabulela ayo ngento nisenzele yona thank you very much Working in Stellenbosch, Kayamandi, the Total Commander. I want to thank all the Somalians that gave the people of Kayamandi food. The people appreciate the food. I also, on behalf of them and my station commander, want to say thank you very much, Somalians. I am Captain Toy from the South African Police Services. We are so grateful to have you guys. I'm saying thank you so much to the Somalia so that they could give the people of Kayamandi. We know that we cannot save anyone to give food. So others, those who receive the food, they say thank you so much. We are really appreciated. 100%. May God bless you and look after you.
all the way. Thank you so much. wariyo Indo Goobjoog TV, Cape Town, Koonfur Afrika.